sababta uu King CK Marish u soo qaatay ayaa waxa ay tahay markii koobaad maaha, markii labaad maaha, waa markii saddexaad. marmar waxaan ku moodaa Mrs. World dooni wixii dhacay saaxiibsna iyo foo day ruux wax ku saaran waa la yaabay fidmiyaalo madaxa i weynaada sida Mr. Don adi darta baby I could be King Kong. marka wiilkiyo aad iyo aad u xanaaqsan baa soo galay live wuxuu doonana uu idhi dadkaas wala xisaabtami doonaa boqor saajira joog aad u xanaaqsan yahay Marish laga taabtay no boqor saajira joog aad u xanaaqsan yahay Marish laga taabtay wala soo bax wala babada soo jeedo soo goosho dhan xoog weyn waa tahay CK dhaqankiisa waxa weey dhaqan ragna ma laha dhaqan qof islaamana ma laha waxa weey tan Marish markii la yiraahdo Miss Wall iyo Fortune markii laga saaro arintan Maria way soo laabatay waxa weey markii koowaad maaha waa markii saddexaad camal oo maleynay oo ka hadlo markii Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada beedleenahay marka maanta waxaan reaction ka bixin doonaa qalqalkiisa wata marka waxaanu reaction ka bixin doonaa hees uu soo qaaday fanaanka Lil Balil sidoo kale waxaan ka marnayn waxa kula jiro King CK heestaas oo noqotay trends aad iyo aad u weyn bay noqotay heestaasi marka Soomaalidii bi aad iyo aad ugu badatay meel kasta laga hadlayaa mina heesta wuxuu ku soo qaatay gabdho aad iyo aad u fara badan marka heesta qofka u horeeyo uu ku soo qaatay ambulance la eegana okay wax ku saaran waa la yaabay baby hadalo marmar waxaan ku moodaa Mrs. World dooni wixii dhacay saaxiibsna iyo foo okay heesta qofka u horeeyo ku soo qaatay waa Mrs. World la sadu jidaan heesta qofka u horeeyo ku soo qaatay waa Mrs. World marka qaybta u horeyso Lil Balil baa Mrs. World ku soo qaatay marka bal qaybta xigta King CK dadku ku soo qaadan doona baynu isla eegana okay baby waxaan leh balacayga wadiyaar afka dayo balbalaarka dibka dayro wax ku saaran waa la yaabay fidmiyaalo baby waxaan leh saad u jeedaanba CK-na wuxuu soo qaatay walax iyo Marish ayuu soo qaatay sidoo kale waxa jira wiil ay iska barteen xagga iyo Canada marka wiilkiyo aad iyo aad u xanaaqsan baa soo hadlay wuxuu rabana uu idhi marka wiilkiyo aad iyo aad u xanaaqsan baa live soo galay sababta uu soo galnay ma garayno marka ayuu Carla kula jira live-ka marka live-ka aan isla eeganaa kaliya inuu Marish caayay waxa la yiraahdaa waxa weey gabdhaha waa isku wada mid Fortune balbalaarka haysta ku jirtay Miss Wall baa ku jirtay walax baa ku jirtay laakiin waxa cusub waxa weeye saddexda gabdhood oo kale waa cusub yihiin in ninkan afkiisa laga maqlo tan Marish waa markii koowaad maaha labaad maaha waa markii saddexaad markii waa dareemi ka dhaa waxa weeye wuxuu sameeyay heeso hore magaca ma heeso hore ma ahan ama si live ama YouTube caadi ah uga la hadlo ama si kale personal biyada ha uga hadlo Marish taada iyo gabdhahan laba kala tahay boqor saajira joog aad u xanaaqsan yahay Marish laga taabtay wala soo bax wala babada soo jeedo soo goosho dhan xoog weyn waa tahay CK dhaqankiisa waxa weey dhaqan ragna ma laha dhaqan qof islaamana ma laha waxa weey tan Marish markii la yiraahdo okay live-ka waad aragtay xanaaqa ka muuqday ninkaasna waad aragtay erayo wuxuu dhahay dadkaas wala xisaabtami doonaa ya sababta uu King CK Marish u soo qaatay ayaa waxa ay tahay wiilkan lagu magacaabo boqor maxay baa la dhaarto boqor saajan baa la dhaar boqor marka wiilkaas soo qaatay wuxuu soo qaatay King CK buu u soo qaatay isagoo live ku jiro markii koowaad maaha markii labaad maaha waa markii saddexaad buu dhahay tan Marish waa markii koowaad maaha labaad maaha waa markii saddexaad markii waa dareemi ka dhaa waxa weeye wuxuu sameeyay heeso hore magaca heeso hore ma ahan ama si live ama YouTube caadi ah uga la hadlo ama si kale personal biyada ha uga hadlo Marish taada iyo gabdhahan laba kala tahay marka ninkan gafaf badan baa ka dhacan
tan kale waxaa la yaabay lil balil gambaleelka miyaaba lagu furtay waa ma yaabe macnaha lil balil waxba ka muusan odhanba hadda Soomaali Maxamed waa inoo jeedaa wiilkaasi keeya horumarkayga laga xun yahay waa la neceb yahay waa la arkilaaya gabar Soomaaliyeed oo walaasheena ama gabdho Soomaaliyeed badhe 3 gabdhood waa asaga lil balil horta asagoo dhahay horumarkayga laga xun yahay ma baarak laakiin lil balil waxa ku sheegaa lil balil asagu ma baydad waxba ma baydad horumarkayga laga xun yahay waxaas ma baydade taas waxa ku badan siik laakiin Soomaaliya in la kala xishoodo oo targetka maalin walba isaga la saaro hadii wax la yiraahdo maaha marka lil balil views kama jiro ayuu Carlo iska yaqaana meesha views ka jiro marka views ka jira bus tahay CK waad markaasi kiibu reaction aad iyo aad u qaldan ka soo bixiyay live dhaxdiisa oo ku jeesjeesayo ya waxay ugu jeesjeesayaan la garnay marka ninka ayuu Carlo sababta uu cawta kala miyaa ka sii dhaxaysay ya mina Soomaalidu wax hadad maanta yar kuftid oo deeqa yar gashid wax ayuu Carlo AK47 kiisa kula dul taagan yahay mina siiki wax yar buu ku raadinayay hadana ayuu Carlo waa ninka kaliya afka uu kugu amaano haduu ku caayay waa ninka weeyaan ayuu Carlo siiki live badan soo ku amaanayaan arkay maanta muuqaalka dad codadka ay digintu in ka yar noqdeen aad iyo aad bay dikraal gelinayna codkiina furan mooday codkii maana furin waxa bilaacadoon baan arkay oo codka aayar loo maqlayo marka garan noqday in leeyahay codka aayar baa loo maqlay marka codka waan idin tul saaray waan in yar baan maqlay waan idin tul